bismillaahi raxmaani raxiim. subax wanaagsan daawadayaal. qodobada wararka TV saaka idin haya waxaa ka mid ah madaxweyne Farmaajo oo ka laabanaya aqoonsi dawladii Shariif ay siisay dalka Kosovo. wafdi Somaliland ka socda oo Nairobi ku sugnaa oo wajigabax kala kulmay kulamo ay la qaateen safiirada taageera Somaliland. maamulka Galmudug oo sheegay inay abaalmarinayaan askar ka hortagtay in isku qarxin rabay munaasabad ka socotay Gurceel. madaxweyne Axmed Madoobe oo si dirqi ah kaga badbaaday weerar ay ku qaadeen ururka Al-Shabaab. xog laga helay ictiqaadistii lagu sameeyay gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Banaadir. wararka dibadda wararka TV saaka idin hayana waxaa ka mid ah kumanaan qof oo ka qayb gashay aaska hogaamiye mintid ahaa oo lagu dilay gobolka Kashmir iyo hay'adda lacagta adduunka oo digniin adag ka soo saartay dagaalka ganacsiga ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Shiinaha. daawadayaal ku soo dhawaada warkaasi oo fidsan. haddii aad ka mid tahay daawadayaasheena ku cusub barta YouTube-ka, fadlan rukumo barteena si warar iyo warbixino quseeya Soomaaliya iyo caalamka aad u heshid adigoo subscribe dhahaya. madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka laabanaya aqoonsi dawladii ku meel gaarka ahayd uu hogaaminayay madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed ay siisay dalka Kosovo. ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Serbia Ifig Dasig ayaa arbacadii safar aan la shaacin ku tagay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya sida ay sheegtay warbaahinta dalka Serbia. Mr Dasig ayaa magaalada Muqdisho wada hadal laba geesood ah kula yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya sida ay qortay warbaahinta dalka Serbia. kulanka ayaa looga hadlay soo celinta xiriirka labada dal iyo iskaashi dhow oo ay yeeshaan labada dal ee Soomaaliya iyo Serbia. sida laga soo xigtay wasiir Dasig, madaxweyne Farmaajo ayaa xaqiijiyay in Soomaaliya aysan marnaba taageeri doonin dhaqdhaqaaq kasta oo ku saabsan gooni isitaag iyo aqoonsi raadis ka hor imaanayo xeerarka caalamiga. madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale sheegay in dawladda Soomaaliya ay ka laaban doonto go'aankii xukuumaddii Sheekh Shariif Sheekh Axmed ay dal madax bannaan ugu aqoonsatay dalka Kosovo sanadkii 2010. Kosovo waa wadan yar oo ka go'ay dalka Serbia 17 Febraayo 2008 kadib halgan dheer oo ay xurnimada u galeen dadka gobolkaasi oo boqolkiiba 90 muslim ay yihiin. dawladda Mareykanka iyo in ka badan 70 wadan oo kale ayaa waqtigaasi dal madax bannaan u aqoonsaday Kosovo, balse waxaan weli aqoonsan Ruushka iyo dalal kale. taa ayaana ka hortaagan Kosovo inay xubin ka noqoto qaramada midoobay. madaxweynaha maamulka Jubbaland Sheekh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa si dirqi ah kaga badbaaday weerar Al-Shabaab ay ku qaadeen kolonyo gaadiid ah oo la socday madaxweynaha Jubbaland. dagaal culus oo u dhaxeeyay ciidanka ilaalada madaxtooyada Jubbaland iyo mintidiinta Al-Shabaab ayaa ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo. dagaalka ayaa yimid kadib markii Shabaab ay weerar dhabagal u dhigeen kolonyo ay sheegeen in uu la socday madaxweynaha maamulka Jubbaland Sheekh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. ila wareedyo ayaa sheegayeen isku hor imaadyo xoogan ciidamada Jubbaland iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab oo ku dhex maray wadada xiriirisa Baarsanguuni iyo Bulogaduud, halkaas oo ay marayeen kolonyo gaadiid ah oo watay madaxweynaha Jubbaland oo ka soo noqday deegaanka Baarsanguuni, halkaas oo madaxweynaha Jubbaland booqasho uu ku tagay. si dhaba looma oga khasaaraha dhabta ah ka dhashay dagaalka u dhaxeeyay labada dhinac, balse waxaa la xaqiijiyay in madaxweynaha Jubbaland uu bad qabo isla markaana uu dib ugu laabtay magaalada Kismaayo. madaxweynaha Jubbaland oo maalin ka hor booqday deegaanka Baarsanguuni iyo Bulogaduud ayaa sheegay in dhawaan uu bilaaban doono howlgal Al-Shabaab looga saarayo deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada Jubbooyinka oo ay gacanta ku hayaan. maamulka Galmudug ayaa sheegay inay abaalmarinayaan askar ka hortagtay in isku qarxin rabay munaasabad ururka Ahlus Sunna wal Jamaaca ay ku lahaayeen magaalada Gurceel. wasiirka warfaafinta Galmudug Maxamed Aadan Cismaan oo loo yaqaan Masagawa oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in la abaalmarinayo askartii ka qayb gashay howlgalkii looga hortagay ninkii isku qarxin rabay munaasabadii Ahlus Sunna ay ku lahaayeen magaalada Gurceel. wasiirka ayaa sheegay in madaxda sare ee Galmudug ay go'aansadeen in la dhiirigeliyo askartaas maadaama naftooda ay u hureen in ay qabtaan nin walxaha qarxa ku xirnaa sida uu hadalka u dhigay. ciidamada ammaanka ee Galmudug ayuu sheegay inay sii wadi doonaan howlgallada lagu raadinayo dadka lagu tuhmayo kiiskan in ay wax ka ogaayeen. Maxamed Aadan Cismaan Masagawa, wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug, ayaa sheegay in hay'adaha ammaanka ay kordhinayaan howlgallada iyagoo kaashanaya shacabka deegaanka. ciidamada ammaanka ee Galmudug
ayaa tan iyo shalay waday howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka iyadoona ciidamadu ay gacanta ku soo dhigeen dhowr qofood oo lala xiriirinayo kulug lahaanshaha ninkaasi uu ka fashilmay weerarka isqarxinta ah uu ka fulin rabay magaalada Guraceel. waxaa faahfaahin dheeraada laga helay sababta xilka looga qaaday gudoomiye ku-xigeenkii maaliyadda ee gobolka Banaadir yaase ka dambeeyay xilka qaadista lagu sameeyay gudoomiye ku-xigeenkaasi. habeen hore saq dhexe ayay soo baxday wareegtada madaxweynaha ee xilka looga qaaday gudoomiye ku-xigeenkii maamulka iyo maaliyadda ee gobolka Banaadir Xuseen Maxamed Nuur oo lagu tilmaami jiray inka ugu awooda badan maamulkaasi. xilka gudoomiye ku-xigeenka xilka laga qaaday ayaa waxa saami u leh beesha uu ka soo jeedo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre waxaana la sheegay in uu sababsaday khilaaf muddo u dhaxeeyay ra'iisul wasaaraha oo ugu dambeyn keenay in uu xilka waayo kadib sanad iyo 3 bilood markii la magacaabay. sida ay sheegayso xogta la helay xilka qaadista gudoomiye ku-xigeenkii maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Xuseen Maxamed Nuur ayaa salka ku hayso maamulka dhaqaalaha gobolka Banaadir oo u baahan nin gacanta ku haya iyadoo ay dhowr jeer isku dhaceen ra'iisul wasaare Kheyre markii lacaga badan lagu tuhmay inay ka maqan yihiin markii dambena lagu guuleysan waayay xal laga helo khilaafkaasi. madaxweynaha Soomaaliya ayaa fuliyay dalabka ra'iisul wasaare Kheyre oo ahaa in xilka uu ka xayuubiyo gudoomiye ku-xigeenka iyadoo bedelkiisa xilka loo magacaabayo shakhsi uu wato ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre. maamulka gobolka Banaadir ayaa ah kan kaliya ee uu magacaabo madaxweyne Farmaajo iyadoo maamulada kale ee ka jira dalka ay hoos tagaan maamul goboleedyada kuwaas oo gudoomiyaashooda magacaabo. wafdi ka socday maamulka Somaliland oo maalmaha ku sugnaa magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ayaa wajigabax kala kulmay kulamo ay la yeesheen safiiro dalalkooda qaarkood taageero dhaqaale ay siiyaan maamulka Somaliland. waxaa dhawaan magaalada Nairobi dalka Kenya safar ku tagay wafdi ballaaran oo ka socda Somaliland kuwa oo halkaas wadahadalo kula yeeshay madax ka tirsan beesha caalamka. wafdiga ayaa waxa ay ka koobnaayeen labada xisbi ee kala ah Kulmiye iyo Ucud oo ay kala hogaaminayeen wasiir Maxamed Kaahin iyo injineer Faysal Cali Waraabe. mas'uuliyiinta wafdiga reer Somaliland ayaa waxa ay kulan la yeesheen safiirada dalalka Somaliland ka taageera arrimaha doorashooyinka iyagoona warbixin ku aadan doorashooyinka siiyay safiiradaasi. xog ay shabakada wararka TV ka heshay kulankaasi ayaa waxa ay sheegayaan in safiirada dalalka Somaliland ka taageera arrimaha doorashooyinka ay ka muujiyeen walaac arrimaha doorashooyinka iyagoo si cad uga hor yimid inay gacan ka geystaan doorashooyin aysan u dhameyn xisbiyada Somaliland. safiiradan ayaa waxa ay wali ka biyadiidan yihiin in xal waaro laga gaarin khilaafka xisbiyada ee ku aadan doorashooyinka oo xisbiga wadani uu meel adag ka istaagay. wafdiga ka socda Somaliland ee ka kooban xisbiyada Kulmiye iyo Ucud ayaa iyagu dhankooda ku adkeysanayay in doorashooyin ay ka qabsoomi karaan Somaliland iyadoo xisbiga wadani uu ka maqan yahay doorashada. waxaana safiiradu u sheegeen in aysan dhacin doorasho aysan u dhameyn xisbiyada oo wali aysan wax taakula ah ka geysanaynin. gudoomiyaha xisbiga Ucud injineer Faysal Cali Waraabe ayaa dhowr jeer gudoomiye Cirra ku eedeeyay inuusan diyaar u ahayn in doorasho ay ka dhacdo Somaliland. si kastaba ahaatee gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cirro ayaa isagu hore uga digay in xukuumadda Somaliland ay isku daydo inay qabato doorasho aanu ku jirin xisbiga wadani isagoo ku hanjabay in haddii ay qabato ay taageerayaasha wadani ay iyaguna doorasho qabsan doonaan. wararka dibadda wararka TV saaka idin hayna daawadayaal waxaa ka mid ah kumanaan kun oo qof ayaa ka soo qayb galay aaska Sakir Musa oo lagu tilmaamayay in uu ahaa mintidka loogu doondoonista badnaa ka oo lagu dilay gobolka Kashmir dhanka India ay maamusho. militariga dalka India ayaa sheegay in Sakir Musa toogasho lagu dilay maalintii Khamiista ahayd kadib markii ay ku go'doomiyeen guri ku yaala koonfurta Kashmir. Sakir Musa ayaa ka goostay kooxda Xisbul Mujaahidiin oo uu ka mid ahaa garabyadeeda hubeysan ee Kashmir kula dagaalamayay ciidamada dalka India. waxa uuna sanadkii 2017 bay'ad la galay ururka Al-Qaacida. dilkiisa ayaa durbo waxa ka dhashay dibadbaxyo xoogan oo ka dhacay gobolka Kashmir oo ay muslimiintu u badan yihiin. hay-adda lacagta adduunka ee marka magaceeda la soo gaabiyay loo yaqaano IMF ayaa ka digtay dagaalka ganacsi ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Shiinaha. war-saxaafadeed ka soo baxay Khamiistii hay-adda ayaa lagu sheegay hardanka u dhaxeeya labada dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka uu halis gelin karo kobaca dhaqaalaha ee sanadkan aynu ku jirno. IMF ayaa intaasi raacisay
in caqabadaha ugu daran ay wajahayaan ganacsatada macaamilka la ah labada wadan. madaxweynaha Mareykanka ayaa sanadkii hore canshuur xooggan ku soo rogay shixnada ganacsi ee uga timaada dalka Shiinaha. Shiinaha ayaa dhankiisa ugu jawaabay canshuur kordhin uu ku sameeyay badeecadaha Mareykanka, waxaana taasi cadaadis ku abuurtay ganacsatada. lacagta canshuurta ah ayaa la sheegay inay ka badan tahay labada dhinac marka la isku daro $360 oo doolarka Mareykanka ah. wada hadal u dhaxeeyay maamulada Washington iyo Beijing oo dhacay bishan ayaa wax guul ah laga gaarin, inkastoo maamulka Trump ay weli ku hanjabayaan in canshuur kordhin kale ay sameynayaan. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen wararka TV saaka waa naga inta.